bilowga filinka tuulada Hallstoff ee dalka Jarmalka wiil yar oo la yiraahdo Moritis ayaa isu diyaarinaya ciyaarta kama dambaysta ah ee dhalinyarada kubadda cagta abihiisa Holger waa tababaraha kooxda wuxuuna wiilkiisa ugu yeerayaa inuu yimaado si uu wax u cuno laakiin Moritis wuxuu ku mashquulay kubad uu ciyaarayay waxaana dhacday in uu si kama ah kubaddii uu u dhufto miiska cuntada markii lagu canaantay ficilkaas wiilka wuxuu aaday dhinaca iyo gaariga wuxuuna hooyadiisa Gina ka codsaday inay u timaado si ay u daawato ciyaartiisa hooyadiisa had iyo jeer way mashquulsan tahay mana aragto wiilkeeda oo ciyaaraya balse markan waxay ballan qaadaysaa inay u iman doonto Holger iyo Moritis waxay u baxeen garoonka si ay uga qayb galaan ciyaarta kama dambaysta ah ee ay la ciyaarayaan kooxda Eblikan ciyaarta dhexdeeda kooxda Hallstoff waxay ku guuldareysteen iyadoo ciyaarta ay ku soo dhamaatay 2-1 dhamaadka ciyaarta Moritis ayaa helay kubad fursad fiican ah oo uu gool ku dhalin karay si uu barbaro ugu keeno kooxdiisa laakiin wiilka wuxuu bilaabay inuu ku fakaro riyo ah inuu ciyaarayo koobka adduunka ee Jarmalka wuxuu isku dayay inuu gool ku dhaliyo isagoo sameynaya dhawal laakiin halkii uu kubadda ku dhufan lahaa wuxuu si lama filaan ah sanka kaga dhuftay goolhayaha kooxda Eblikan ciyaarta markay dhamaato kooxda Eblikan ayaa guuleysatay ciyaartoydii Hallstoffna way ka xanaaqaan Moritis sababtoo ah marar badan ayuu kooxda u horseeday khasaaro isagoo luminaya fursado gool loo filan karo markii uu tago qolka ciyaartoyda wuxuu halkaas ku arkay hooyadiisa Gina oo ka soo daahday inay u imaado waxay isku dayday inay wiilkeeda ay dejiso kadibna waxay raadinayaan Holger waxayna arkeen isagoo la jooga xoghayaha kooxda waxayna u muuqata inay xiriir hoosaad ay leeyihiin Gina way ka xanaaqday waxayna codsatay furiin iyadoo niyad jabsan waxay Moritis ula guurtay magaalada Eblikan si ay u dagaan guriga aabaheeda markay halkaas gaareen Moritis wuxuu la kulmay awowgiisa oo xanaaq badan kana shaqeeya garaash waxay ku hayeen alaabtiisa qolka ay hooyadiis hore u deganayd Moritis way ku adkaatay nolosha cusub laakiin hooyadiisa waxay ku dejisay oo ay u sheegtay in wax walba ay hagaagi doonaan waxayna u ballan qaadaysaa in awowgiisa uu ka xayn doono garoonka kooxda Eblikan laga yaabo xitaa inuu kooxda dhalinyarada uu ku biiro subaxdii xigtay awowgiis wuxuu geeyay garoonka wuxuuna la kulmay tababaraha kooxda Rocket labadooduna iskuma fiicna laakiin Rudy oo awowgiisa ah wuxuu weydiiyay tababaraha inuu wiilkiisa fursad uu siiyo Rocket wuxuu ku mashquulsanaa telefoonkiisa wuxuuna wiilkiisa kabtanka kooxda ugu diray inuu tijaabiyo Moritis nasiib darro kabtanku waa Mark oo ah goolhayihii uu Moritis sanka kaga dhuftay intii lagu jiray ciyaartii hore markii uu aqoonsaday Moritis Mark wuxuu u wacay ciyaartoydiisa kale waxayna bilaabeen inay kubado badan ay ku tuuraan wiilka Rudy ayaa wiilkiisa ka difaacay oo meesha ka soo waday balse markuu Moritis isku dayo inuu u mahad celiyo awowgiisa ma doonayo inuu la hadlo subaxdii dambe Moritis wuxuu tagay dugsigiisa cusub halkaasna wiil la yiraahdo Anas ayaa ku soo dhaweeyay Anas isna waa ilmo ay waalidkiisa ay kala tageen wuxuuna baray walaalkiisa Imid iyo saaxiibadiisa Nico iyo Katrina waxay ku casuumeen Moritis inuu la ciyaaro kubad laakiin Mark iyo ciyaartoydiisii kooxda Eblikan ayaa halkaas yimid Mark wuxuu ku maadeystay Moritis wuxuuna kubadooda u tuuray meel fog wuxuu u sheegay inay iska daayaan kubadda sababtoo ah ma haystaan koox dhab ah tani waxay sii dhiirigelisay Moritis wuxuuna ku yiri asxaabtiisa aan dhisano koox gaarka ah waxay bilaabeen inay raadiyaan garoon ay ku tababartaan ugu dambayna waxay helaan dhul faaruq ah oo u dhow qashin qubka inkasta oo meesha aysan fiicnayn Moritis wuxuu yiri waa garoon fiican waana ku ciyaari karnaa wuxuuna aaday goobta isdiiwaangelinta tartanka dhalinyarada wuxuuna doortay magaca Defilis laakiin haweeneyda qaybta diiwaangelinta waxay weydiisay iyadoo leh yaa tababare u ah kooxdiina maadaama ay u baahan yihiin tababare rasmi ah Moritis wuxuu magacaabay magaca awowgiisa sababtoo ah hore ayuu u ahaan jiray ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara kadib kooxda waxay dib ugu laabteen garoonka cusub waxayna adeegsadeen mashiin cawska jaraya iyo waxyaabo ay ka heleen qashin qubka si ay u dhistaan garoonkooda markii ay dhameeyeen shaqada Moritis wuu ku farxay wuxuuna doonayaa inuu tuso Mark iyo kooxdiisa in aysan isaga ka fiicnayn laakiin Mark ayaa maqlay hadalkiisa wuxuuna ugu hanjabay inuu garaaci doono si lama filaan ah koox dhalinyaro ah oo magaca Baakar ku ciyaarta ayaa soo baxday waxaana hogaaminaya wiil la yiraahdo Alex wuxuu ku amray Mark iyo asxaabtiisa inay meesha ka tagaan kadibna wuxuu u sheegay Moritis inuu ku soo biiro kooxdiisa kubadda cagta Moritisna wuu aqbalay habeenkii markii la gaaray hooyadiisa Gina waxay ka codsatay inuu awowgiisa uu geeyo casho Rudy wuxuu ka shaqeeyaa ilaalinta dukaanka weyn ee magaalada ku yaala markii uu halkaas uu tago Moritis wuxuu isku dayay inuu ka codsado awowgiisa inuu noqdo tababaraha kooxdiisa laakiin Rudy uma jawaabin wuxuuna ugu sheekaynayaa xaaskiisii hore Marina wuxuu u sheegayaa in isaga iyo Rocket ay hore ugu ciyaari jireen kooxda Eblikan laakiin labadooduba ay isla jeclaayeen isla Marina balse Marina markii ay dooratay Rudy Rocket wuu ka xanaaqay tan iyo markaasna ma aysan wada hadlin Moritis markuu arko inuusan awowgiisa diyaar u ahayn arintan wuxuu guriga ku noqday isagoo niyad jabsan maalintii xigtay wuxuu bilaabay tababarka kooxdiisa cusub Alex wuxuu soo bandhigay ciyaartoyda kale sida Sleepy Tim Colin Cosset Andy iyo Shadow hadda way dhamaystirmeen waana 11 ciyaaryahan oo tartanka dhalinyarada ka qayb galaya intii ay tababaranayeen Alex iyo saaxiibadiisa waxay isku dayeen inay goolal ku dhaliyaan iyagoo isticmaalaya shuudad laakiin badankood way ku fashilmeen kooxda xaalkeedu ma uusan fiicnayn laakiin Moritis wuxuu isku dayay inuu dhiirigeliyo isagoo leh haddii aan dadaalno waxaan garaaci karnaa kooxda Mark dhamaadka tababarka Katrina way xanaaqday sababtoo ah Moritis mar walba wuxuu ka fikirayaa inuu ka adkaado Mark halkii uu ciyaarta u ciyaari lahaa si madadaalo ah Moritis ma uusan fahmin sababta ay sidaas ugu dhaqmayso laakiin Katrina way baxday gurigeeda ayayna ku laabatay halkaas waxaa lagu ogaaday in Mark uu yahay walaalkeeda ay aabo wadaaga yihiin sidoo kale aabaheeda cusub
cusub wuxuu u diiday inay kubad ciyaarto isagoo leh kubadda cagtu waa ciyaar wiilasha oo kaliya loogu talagalay wuxuuna ku qasbay inay tennis ciyaarto si kastaba ha ahaatee Katrina kama tagayso jacaylka ay u qabto kubadda cagta waxayna sii waday tababarka iyadoo la ciyaaraysa wiilasha markay kululaadeen kooxda si fiican iskuma fahmin dagaallo iyo muran badanna way dhaceen hal mar Mauritis wuxuu ugu yeeray Katrina inay kubadda u soo dhiibto balse iyada way ka xanaaqday waxayna kubaddii u tuurtay meel kale Mauritis wuu xanaaqay wuxuuna ku yiri Katrina adiga ayaa kooxda burburinaysa si Mark iyo kooxdiisu ay u guuleystaan taasi waxay sii kicisay Katrina waxayna bilaabeen inay isqabsadaan ciyaartoydiina way kala dhexgaleen maalmo kadib waxaa la gaaray ciyaartii isreebreebka ugu horeysay kooxda Devil ayaa la ciyaaraysa kooxda Eblikan inta Anas uu buufinayo funaanadaha iyo lambarada ciyaartoyda garsoorihii ayaa u yimid Mauritis wuxuuna arkay in kooxda ay 10 qof kaliya ay yihiin sababtoo ah Katrina weli ma aysan imaanin sidoo kalena tababarahoodii garoonka kuma jiro Mauritis wuxuu u sheegay inuu imaanayo dhawaan markaas ayuu Mauritis u wacay hooyadiisa wuxuuna weydiiyey in awowgiisa uu u keeno bombalihiisa yar ee uu nasiibka u aaminsan yahay Gina way ku raacday awowgiisa inkastoo uusan rabin inuu baxo ugu dambeyntii wuxuu tagay garoonka isagoo aan ogeyn in wiilkiisu uu qorshe kale leeyahay isla markii uu yimid Mauritis wuxuu garsooraha u sheegay in tababarahoodii uu yimid isla waqtigaasna Katrina way timid iyaduna kooxda oo dhan waa ay dhameystiran tahay ciyaartu way bilaabatay laakiin isfaham la'aanta ciyaartoyda awgeed kooxda Devil waxaa lagu xasuuqaa 12 gool iyo eber guuldaradan weyn kadib ciyaartoydu way niyad jabeen Mauritis ayaa isku dayaya inuu dejiyo isagoo leh weli fursad labaad ayaa jirta ciyaarta xigta ee aan dadaalno laakiin markay ku noqdaan garoonkoodii tababarka waxay arkeen tarakyo burburinaya dhulka sababtoo ah dhismo cusub ayaa laga dhisayaa halkaas rajo kasta oo ay lahaayeen way burburtay habeenkii Mauritis fikir kale ayuu la yimid wuxuu asxaabtiisa ugu yeeray moolka weyn wuxuuna isticmaalay kaarka ammaanka ee awowgiisa si uu gudaha u galo awowgiisa wuu jiifay Mauritis iyo kooxdiisuna waxay tababar qarsoodi ah ka bilaabeen gudaha moolka Alex ayaa markaas kubadda la cararaya waardiyaashii ammaankuna waxay isku dayeen inay qabtaan laakiin Alex wuxuu adeegsaday xirfadiisa oo si fudud ayuu uga baxsaday si kastaba ha ahaatee waqtigii weli ma uusan dhammaanin kooxda Devil waxay kubadda isku dhiibeen iyagoo wadada dhexdeeda ku ciyaaraya iyagoo ka leexanaya gawaarida iyo dadka rayidka ah ugu dambeyn kubadda waxay ku soo noqotay Alex kaasoo kubaddii cirka u tuuray Mauritis iyo Mark labaduba waxay isku dayeen inay qabtaan laakiin ugu dambeyntii kubaddii waxay soo gashay gacanta Mauritis markaasuu markii ugu horeysay ka guuleystaa oo uu ka adkaaday Mark inkastoo ay guuleysteen buuqa iyo carada ka dhacday wadada waxay soo jiidatay booliska waxaana lagu qasbay labada koox inay baxsadaan markii ay baxsadeen kooxda Devil waa kuwa aad u faraxsan waxayna Alex ku amaaneen dadaalkiisa Anas wuxuu leeyahay Alex waa wiilka ugu xiisaha badan iskuulka wuxuuna weydiiyey haddii wararka ku saabsan Alex ay run yihiin kooxdu ma fahmin hadalkaas laakiin Alex wuu ka xanaaqay wuxuuna ka cararay meeshii dhanka kale guriga Katrina Rocket wuxuu doonayaa inuu hubiyo in kooxdiisu ay ku guuleysan karto tartankan isla markaana uu Rudy ka arguto wuxuu wacay garsooraha ciyaarta semi-finalka wuxuuna isku dayay inuu musuqmaasuqa si uu natiijada ugu soo leexiyo Barty oo ah hooyada Katrina waxay maqashay musuqmaasuqa meesha ka socda balse cidna uma sheegayso si aysan ninkeeda dhibaato ugu keenin dhanka kale Mauritis wuxuu u tagay Alex si uu ogaado sababta uu uga carooday Alex wuxuu u sheegay sheeko murugo leh waana waqti hore ayuu ka tirsanaa kooxda Eblikan hal maalinna waxaa loogu yeeray ciyaar muhiim ah laakiin isla maalintaas hooyadiisa waxaa lagu xiray xabsiga iyadoo isku dayaysa inay sii dayso Alex aabihiisa oo mar kale la xiray ka hor inta aysan tagin waxay ku tiri Alex fadlan walaalkaaga yar ee Tommy ilaali laakiin Alex wuxuu ka baqay inuu lumiyo booskiisa kooxda markaas ayuu guriga kaga tagay walaalkiisa kaligiisa wuxuu aaday ciyaartii oo uu gool ka soo dhaliyay laakiin markuu soo noqday wuxuu arkay boolis badan oo guriga hortiisa taagan wuxuu ogaaday in walaalkiisa uu shil galay tan iyo markaasna wuxuu dareemayaa dembigaas inuu isaga ka dambeeyay markii uu sheekadaas uu maqlo Mauritis wuxuu isku dayay inuu saaxiibkiisa uu dejiyo laakiin Alex wuu iska tagay wuxuuna diiday inuu ciyaaro ciyaarta soo socota subaxdii xigtay Alex ma uusan imaanin garoonka balse Rudy wuxuu ku dhiirigeliyay kooxda inay laantiis ciyaari karaan wuxuu Anas u doortay inuu bedelo Alex booskiisa kooxdu way ku farxeen waxayna u baxeen garoonka si ay ula ciyaaraan kooxda Eblikan ciyaartu way bilaabatay labada kooxna waxay ku dagaalamayeen kubadda Nico ayaa si xun looga riixay dhabarka laakiin garsooruhu ciyaarta wuu sii waday ciyaartoyda Eblikan waxay marar badan ku xadgudbaan Mauritis kooxdiisa garsooruhuna waxba kama qabanin arrinkaas markii kooxda Devil ay isku dayeen inay sidaas sameeyaan garsooruhu uu joojiyay ciyaarta wuxuuna siiyey kooxda Eblikan laad hor ah halkaas ayayna gool ku dhaliyeen ciyaartiina waxay noqotaa 1-0 ciyaartu way socotay Katrina waxay isku dayday weerar kaligeed ah inay samayso laakiin goolhayihii Eblikan ayaa ka badbaadiyay mar kale fursad ayaa timid oo Katrina waxay u yeertay Mauritis si uu kubadda u siiyo laakiin Mauritis wuxuu isku dayay inuu isagu uu gool ka dhaliyo nasiib darro kubaddii waxay ku dhacday birta sare ee goolka fursadaas la seegay ayaa keentay in ciyaartu ay ku dhamaato 1-0 kooxdii Eblikan ayaana guuleysteen Barty oo daawanaysay ciyaarta way ku faraxsan tahay in gabadheedu ay si fiican u ciyaartay balse waxay og tahay in guuldarrada ay sabab u tahay khiyaanadii ninkeeda uu sameeyay habeenkii Rocket wuxuu qabtay xaflad dabaaldeg ah Bartyna waxay isku dayday inay ka dhaadhiciso inuu Katrina uu ku daro
daro kooxda balse wuu diiday isagoo leh gabdho kama ciyaaraan kooxdayda. dhanka kale nolosha Mauritis iyo qoyskiisa way sii adkaanaysaa. Rudy waxaa laga eriyay shaqadii ilaaliyaha ahayd waxaana buriyay Rocket. Mauritis hooyadiisa Gina weli shaqo ma aysan helin mana taqaan sida ay u bixiso kharashyada guriga. markuu Mauritis uu guriga yimid hooyadiisa waxay weydiisay sida ciyaartu ay ku dhamaatay laakiin wuu xanaaqay wuxuuna ku qayliyay isagoo leh waan ka daalay noloshan qaab darada ah. wuxuu xitaa hooyadiisa ku eedeeyay wax kasta oo dhacay. Gina way ka xumaatay hadaladiisa waxayna u dirtay qolkooda si bay ciqaabo ugu noqoto. markii ay kaligeed noqoto Gina way ooyday mana garanayso wax ay sameeyso. markaas ayaa waxa albaabka ka soo yeeray codka aabihiisa Mauritis. wuxuu mar kale ka codsaday inay cafiso wuxuuna doonayaa inuu la hadlo Mauritis. wuxuu u sheegay in hooyada Katrina ay daaha ka rogtay fiyaanadii Rocket waxaana kooxda Eblikan laga saaray tartanka. taas micnaheedu waa in kooxda Mauritis ay helayso fursad kale oo ay ku ciyaaraan finalka waxaana ay la ciyaari doonaan kooxda Holger ee Hall Stoff. ugu dambeyn Holger wuxuu codsaday in Gina ay timaado si ay u daawato ciyaarta wuxuuna leeyahay waa inaan mar kale isku daynaa inaan noqono qoys dhammaystiran. Katrina waxay aqbashay in ay baxsato waxayna bilaabaysaa in ay daaqada ka soo degto markaasna Mark ayaa soo muuqday. wuxuu ku yiri ma ogolaanayo inaad baxdo wuxuuna caqabad ku noqday Mauritis wuxuuna ku bilaabay inuu garaaco. Mauritisna wuu iska difaaci waayay laakiin markaas Mauritis si lama filaan ah ayuu u soo weeraray wuxuuna mar kale sanka ka jebinayaa Mark isagoo ku leh ha igu soo noqon mar dambe. kadib Mauritis iyo Katrina way carareen waxayna u ordeen si ay ula kulmaan kooxda intiisa kale. dhanka kale Rudy wuxuu ku sugan yahay baar aad buuna uga niyad jabsan yahay inuusan caawin karin wiilasha si ay u guulaystaan. markuu aad u sarqaamay wuxuu kaligiisa u baxay wadada. markuu sii socday wuxuu isku dayay inuu shito sigaar laakiin baabuur weyn ayaa si toos ah ugu dhacaya. subaxdii xigtay Mauritis wuxuu maqlay war aad u xun wuxuuna la baxay saaxiibadiisa isbitaalka halka oo ay ku arkeen Gina oo banaanka ku sugaysa. nasiib wanaag Rudy wuu badbaaday wuxuuna maqlay wiilasha oo ka warramaya khiyaanadii Rocket taasoo ku dhiirigelisay inuu weli uu la joogo si uu u taageero. si kastaba ha ahaatee lugtiisa ayaa jaban wuuna ka maqnaan doonaa garoonka ilaa uu ka soo bogsado. kooxdu tababare la'aanteeda ma ciyaari karto balse Mauritis wuu fikiray. garoonka dhexdiisa aabaha Mauritis ayaa tababaraya kooxdiisa laakiin weli wuxuu ka fikirayaa Gina iyo wiilkiisa. daqiiqada kadib wuxuu arkay Gina oo soo gashay garoonka waxayna weydiisay fursad kale inuu siiyo. wuxuu wax ka weydiistay Rudy laakiin Gina waxay u sheegtay inuu xanuunsaday sidaas darteedna iyadu ayaa noqotay tababaraha kooxda Devil. Holger waa uu la yaabay balse Gina waxay ku tiri nasiib wacan waxayna dib ugu noqotay kooxdeeda. ka hor inta aan la bilaabin ciyaarta Alex iyo aabihiisa ayaa ka soo muuqday garoonka. Alexna wuxuu codsaday inuu mar kale kooxda uu ku soo biiro. dhammaan ciyaaryahanada waxay si farxad leh ugu soo dhaweeyaan garoonka waxayna siiyeen funaanadii hore. Gina waxay wacday Rudy si uu u hadlo kooxda isagoo leh nasiib wacan Mauritis hogaami kooxdaada sida kabtan camalna u dhaqan. ciyaartu way bilaabatay. Rudy wuxuu isku dayay inuu tilmaamo siiyo Gina balse maadaama aysan garanayn kubadda cagta waxay khalad u sheegtay ciyaartoyda. xaaladdu way ka sii dartay kooxdii Hall Stoff ayaa gool dhalisay. markaas kadib kooxdu waxay heshay laad hor ah balse mar kale Hall Stoff ayaa gool kale dhalisay. ciyaartuna waxay noqotaa 2-0. markii qaybtii hore ay dhamaato Gina ma garanayso waxa la sameeyo. Rudy wuxuu u sheegay inay fikirka ciyaarta ay u eegto sida karinta keega camal. Gina waxay u yeertay wiilasha iyadoo leh ciyaara kubadda sida inaad keeg dubaysaan camal. waxay bilowday inay u sheegto iyadoo tiri ku rid 3 ukun taasoo ciyaartoydu ay la yaabeen. laakiin Mauritis wuxuu fahmay inay ula jeedo inay sameeyaan 3 weeraryahan wuxuuna amray in 3 ciyaaryahan hore la dhigo waana isaga Katrina iyo Alex. markii ciyaartu ay dib u bilaabato kooxda waxay bilaabeen inay si fiican u wada ciyaaraan. Alexna wuxuu dhalinayay gool qurux badan oo rugmad ah. qorshihii Ginana wuu shaqeeyay. mar kale Alex wuxuu sameeyay weerar kale isagoo sameynaya goysmo badan wuxuuna dhalinayaa gool kale. ciyaarta ayaa 2-2 noqotay laakiin kooxda Devil way isdiiriyeen. Shadow wuxuu kubadda u tuuray Mauritis kaasoo dareemaya sidii inuu finalka koobka adduunka uu ciyaarayo camal. wuxuuna sameeyay gambis cajiib ah wuxuuna kubadda u tuuray Katrina taasoo si toos ah u dhalisay goolka guusha. ciyaartii kama dambaysta ahayd way soo dhamaatay. kooxda Devil ayaa ku guulaysatay koobka dhalinyarada. dhammaan ciyaarayanada way dabaaldegayeen. Holgerna wuxuu u yimid Gina iyo Mauritis si uu u hambaliyeeyo. qoysku markaas ayaa dib isku heleen. ugu dambeyn Mauritis wuxuu u tagay Katrina isagoo ku leh waad ku mahadsan tahay goolkaaga quruxda badan. iyaduna waxay ugu mahadcelisay baaskii uu siiyey. labadooduba waxay noqdeen saaxiibo waxayna go'aansadeen inay kooxda sii hogaamiyaan ciyaaraha soo socda. waxaa laga yaabaa in mustaqbalka Mauritis uu gaaro riyadiisii ahaa inuu u ciyaaro xulka Jarmalka oo uu dhaliyo goolkiisii dhawalka ahaa ee uu aadka u jeclaa.